iyadoo ay iska soo daba dhacayaan hambaliyada madaxweynaha shanaad ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa warfidiyeenka hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa kula hadlay qaar kamid ah qurba joogta xisbiga kulmiye waxaanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u mariyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoo eebana uga bariyay in uu ku asturo xilkaasi waxaana kamid ah hadaladii qurba joogta dhammaan waxaan jecelahay inaan halkan uga hambaliyeeyo shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waan ku hambaliyeeyo guushii taariikhiga ahayd ay soo hoyeen 13 November inuu ku dooranay madaxweynaheena cusub ee shanaad mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan jecelahay isagana inaan halkan uga hambaliyeeyo ugana duceeyo madaxweynaha cusub ee qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi in Ilaahay xilka u fududeeyo qarankeena Soomaaliland ayaa guuleystay 13 November waxaynu ummadda u muujinay adduunka u muujinay qaangaarnimada siyaasadeed ee ummadda reer Soomaaliland waxaynu u baahanahay inaynu boogihii ina kala gaadhay iyo nabaradii intii lagu jiray campaign-ka aynu dib u dhayno qaran midaysan aynu noqono oo gacmaha isqabsada oo horumar gaadha aad u hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici waxaan aad iyagana u hambalyeynaya ciidamada ammaanka oo runtii la'aantood wax badan inoo qabsoomeen komishanka qaranka oo shaqada qabteen aad iyo aad u wanaagsanayd waxaan leeyahay reer Soomaaliland dhamaanba maanta party politics tartankii iyo loolankii siyaasadeed xisbiyadu meel baynu ku xidhnay meel baynu dhignay maanta qaranka oo isku dhan oo xisbi walba leh oo aynu midnahay ayaynu meel uga soo wada jeedsaneen awal wax marka ugu horeysa aan hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaa madaxweynaheena cusub Muuse Biixi Cabdi ayaan runtii u dirayaa waxaan kaloo duco iyo hambaliyo u dirayaa madaxweynaheena rugcadaaga ah Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii ku sifoobay haliye qaran ayaan horta isagana u dirayaa waxaan runtii madaxweynaheena cusub u rajaynayaa guul iyo barwaaqo runtii waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inuu dhammaanba mideeyo Soomaaliland oo dhan Soomaaliland cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici in Ilaahay inuu guuleeyay doorashadii inoo qabsoontay runtii Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay Soomaaliland oo dhan baa wada guuleysatay madaxweynaheena waxaan leenahay cusub Muuse Biixi waxaan leenahay hambaliyo waxaan leenahay maxaan dhahay shacabkii Soomaaliland waxa weeyaan aday foodkii ku siiyeen adaanay ku doorteen maanta waxa lagaaga baahan yahay sidii aad shacabka Soomaaliland aad u simi lahayd maxaan dhahday ugu xaq soori lahayd waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV Hargeysa.